shacabka ku nool deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa mar kale ka barakacaya deegaanadii ay deganaayeen kadib markii fatahaada webiga Shabeelle uu saameyn xoogan ku yeeshay waxaana ka dhalatay fatahaada macluul gaajo iyo cudurro sida malaria tifowga korconconka iyo cudurro kale aad u fara badan shacabka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo saameynta xoogan uu ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle in ka badan 70 tuulo ayaa waxa ay ka barakaceen dadkii deganaa halkaasi hadda wax kasta u baahanahay hadda waa u baahanahay bac waa u baahanahay baad waa u baahanahay haye biyana barakici ya wadaryaal waa u baahanahay hadii la ku darnaani saan samada aan qarqarnaa iyaga dhabe gudoomiyaha degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Siidow Cabdiraxmaan ayaa baaq u diray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka inay ka shaqeeyaan sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadkaasi ku dhibaataysan tuulooyinkan hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo fatahaada webiga Shabeelle mar kale ay saameysay ma aad iyo aad macna maalos aan ku codsadaane dawlad goboleed Koonfur Galbeed oo in horey madaxweynaha Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran gudoonka baarlamaanka wasiirada iyo hay'ado dhammaan oo gargaarka macna shaqada kale Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.